Assalaamu calaykum waraxmatullah daawadayaal kusoo dhawaada wax kasto TV waxaa idinla hadlayo Farseef. Maanta waxaa idinkaga sheekeynayaa qisadii faleenbadii badashay nolosheeda. Waa qiso cajiib ah oo 2 sano ka hor igu dhacday aniga, laakiin intaa sheekada u guda galin waxaa jirto hordhac. Sheekada sida ku imaadsa u fahantiin. Markaan ahay form 4 14 sano jiray, markii suuqan gaarahay ka horteed marka kubadda cagtaan ciyaari jiray cunug yar oo iska qaliiro gaabana ahay. Marka banooniga iska dheeli jiray iska baashaali jiray ma almiiteyn jirin, laakiin banooniga waa ku fiicnaa, xirfadeeda aad u fiicneed. Marka qaangaar iyo 15 sano waxaas soo gaaray maaragtay. Ani dhan waxaa noqday waa weynaaday, qof dheer oo cayilan oo banoon dhan waa dheeli waa almiito dhanna waa nacay. Horta almiito ma jecleen weligii. Marka waxaa la bilaabay kooxda lee'awaa ka ahaan jiray intaa yaraa. Markaa cayile oo saas u dheeraaday oo arkay ani xataa jirkay cusub baa la qabsan waayey oo lugaha dhan culeys waa inaad dhaqaaqi iyo waxaas ma rabay. Caajisa biloo dhan isaaran wax le inaa cunaa rabaa, wax qabo inaa cabaa rabaa. Marka 2 sano kadib dugsi sare aan dhameeyey, jaamacada intuu soo aaday xamar gobolka ka imaaday asalkeyga. Marka waxaa dhacday inaan banoon dhanka niyad jabno. Xamar markaa imaaday meelo badan oo banoon lagu dheelo malaha ogta, aniga sarax uma balanin. Marka banoon dhanaan ka niyad jabay. 2 sano jaamacadda ugu horeysay banoon dhan ma dheeli jirin, xaafadda iska joogi jiray. waa sii cayil markaas, cayil waaweyn. Surwaale xataa oo ii gala ma heli jirin badanaa, oo ku dhib qabi jiray. Waad ka sheekeysaneen marka quraacda ku kor sheekeysaneen. Say sheekadu u waday hal mar le faruurta iska qaniinay. Kastoo xanuunsaday, indhaha ilin soo istaageen, aad isku qaniin, micida iska dhex bixiyay. Dhiig mii imaanin laakiin markii hal maalin ay gudubtay meeshu ay soo kuusatay, marka soo dheeraatay jirkeyga soo dheeraatay. Faruurta hoose ahayd jirkeyga soo dheeraatay. Adiga 2 beri 3 beri inay kaliya degayso oo maleynaa ma degin. Sidaas oo ahayd isbuuc kadib miyaa cirbid wax ku taataabtay inaa bajiyaa rabi. way boqowaasay meesha buro camal ay iga noqotay. bil camal iska haysta buradaas jaamacada iska dhiganaaba. imtixaanay walaxa soo dhawaayay. Marka dhakhtar iyo waxa sidaad aad dhib ka imaanay isla marka imtixaanka finaalka markaa soo galay oo jaamacadda waxa noqonayay semesterka 6aad camal miyaa soo gudbaa. markaas waa tagay. marka qaliinka oo dhamaaday, ileen furuur leh waa ma ogtaa ma lagu suuxinaa waxa iska fududaa meesha la kawaabi lagu daraa lagu qala. qaliin yaro iska fududoo ahaay meesha. marka mala talin waa la gubi leh markii la bagi. marka qolka qaliinka saas ugu soo baxay, dhakhtarkii ay hor imaaday oo iqale inaa wareera camal u maleynaa marka faleenbaha lagu duro cunug wiilkan. faleenba qaado, faleenba lagu duro isla meesha oo iseexiyo, faleenba lagu duro insulin. sheekadana intee ka bilaabanay marka faleenba insulin aan xataa ma u baahneen, anuu diidaya lagu duray, ma u baahneen. irid markaa kasoo baxaya miyaa albaabka waxadiis miyaa ku turaanturooda. marka inaa wareeriyo u maleynaa dhakhtarka. faleenbadaasaa lagu duray 2 saacadood kadib markay u dhammaatay xaafadeeda soo aaday. marka 2 beri 3 beri joogay, anna waxaa dareemay awood iyo dhaqdhaqaaq iyo anoo yar camal soo xasuustaa. markaa yaraasa ahaan jira camal noqday. anna inaa fadhiyo marow burona hoolle inaa qabtaa rabaa. mid kale idin sheega horta, almiitada bush up kal dhahay ma aragtay wiliga hal xabo xataa waa dhihi waay. wiilka iga yarna asoo wiligiis almiiteen oo haddoo markiisa kood isku dayay 5 oo dhahay halkii mar. maasha Allah horta cayuumin. marka aniga si kale wax ii qaldanaya, jirkeyga dhan caajis nooc kala saarnaa. faleenbadaas wixii ka dambeeyay horror noqday brother.
markii aan isbuuc ay kusoo wareegatay arrintaas waxaa bilaabay inaan fadhin waayo anoo fadhiyaa iska dhidida awood leh iyo tabar inaan almiiteeyaa bilaaba marka bush abti aa dhihi waayo mar koowaad oo isku dayaya waxaada kadib almiita qaliinka 3 hal mar dhahno waa yaabay maxaa kaa qaldan ma u maleynaya inay faleembada iyo waxaas ii keentay marka sanadooyin kadib waa soo xasuustay mar dhowle faleembada inay ahayd ay soo dhacday almiita le baro dhan almiitadii soo jeclaaday xiise ay u qabatay alaabo badanaa guriga ku samaystay aan jiim iyo waxaas inaa galo ma jeclay dhaqaalaa bartaa marka qiimaha ugu yar inaa ku noolaada isku dayi waya sidaas u ahayd marka almiitadii jeclaaday culeyska waa iska dhimay 100 kiilo miyaa ahay hatta 79 kiilo ahay almiitadii soo jeclaaday maasha Allah hobbigeygina banooniga ahaa horta oo ii soo laabtay awal quraan farsamadeedu way fiicneed laakiin culeyskaas leh waaye culeyskiina maadaama xari Berbatov isku bedel iyo Ronaldo weyne iyo Bruno Silva waa yaabay meeshan koox mardaba Bruno isleeyna goosh aan waa dhila moogta Brunigo soo shootkiisa xawad inaa saartay koox kale ka caawino warniyo goosha u rabay waxa uu kontaroolna xabadka u dhiyo waxay ahaayeen adii wax jilcane ahaayeen waxaas ma shoot ah ka u kontarool inaa siyaa mid kale u baas marka awoodeedii waxay dhan ay soo laabtay maasha Allah marka hadda waxa uu almiiteena sanadka horena 2021 waxa isku dayay degmooyinka inaa dheelo degmada yakhshida uu almiiteeyay laakiin nasiib daro ma soo bixin sanadkaas markii la almiitay bilaw ee marka adiga 98 kiilo camal ah marka ma astaghfirullah 91 miyaa ah markii la bilaabo almiita saas ma u diyaarsaneen laakiin iska sii taga dhahay si arag meesha almiita iyo wax si la isku yeelay arag adi khibrad ka sii dhigo marka sanadkan isku diyaarinaya hamigeen inaan xulka qaranka u dheelaaro wiligeey reedaas waa lahaan jiray horta xulka qaranka Soomaaliya inaan u dheelo ani markaa yaraa ilaa hadda banooni aad u jeclahay kubadda cagta malay maro yaraanteeda 2002 xasuustaa Brazil tuuliya taageeri jiray rasiib Ronaldo weyna ku daysada aniga ciyaartooyga Brazilian marka ani nasiib uma yeelanin ciyaartooyda xulkeena hore inaa fiirsado iyo maksoo gaarin ay horeeyeen laakiin waxa rajeynaa in dalkii wax badan u qaban doono oriyadeena gaari doono marka waa kaasi faleembadaas aan nolosheeda bedeshay anoo ka qoostay riyooyinkeyga oo sidaas iskaga socon rabo waa kasii darla saacadda 150-200 kiilo si ahaan lahaa alxamdulillah ilaa ma hadda iska ilaahay uga fajiyay adoo faleemba iyo waxaas isku darina waad bilaabi kartaa wax walbo step ay bilaaba almiita hadaa bilaawdid maalin koowaad way adagtahay maalin labaad way kasii adagtahay maalin saddexaad maalin afraad waa la qabsanaya adiga jirkaada adduunku wuxuu u jecel yahay inuu wax la qabsado waa arrin ilaahay nagu beeray subxaanahu watacaala meel walba inaad qabsan kartid marka hadafada leedahay ka qoonsanin weligaada aamin inaad gaaraysid awooddaada ku kalsoonaaw waxa kaloo jirto muuqaalkan hadduu ku cajibay like noo saar haddii oo almiiti waxyaabahaas aad rajeynaysidna iyo waxaad jeceshahay inaan mustaqbalka meeshaan kasoo gudbino ma comment inuu soo qor waad mahadsantihiin marka khayra idin rajeynaa ilaa heerkaan haddaad soo gaarteenna daacadaad tihiin ilaa khayra idin siiyo marka sheekadani waa taas haddaa sheekooyin kale oo nolosheeda ku saabsan aad ratiin waa taase sheeko ayaa jirta oo jacaylkii koowaad oo kale marmar ugu magacaabo kale jijiir buu joogay buug inaan ku qoraaro waa laakiin muuqaalkan hadduu gaaro adi 50 kun oo kale camal oo views adi inaan soo dhiga sheekadaas waa laga yaabaa laakiin hadda intaasoo kusoo kooba nabadii